السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي أنا سي سعودي سؤالها سناب شات كزايد يوسف بدنا سو أنا وسي سعون دونان هذا الكي يقول لي سؤالها سؤال شو حكى تمي عبد المي وحواي long time fan subscribe داير وقت هو السعودي dadki ugu horeeyay ku xirnaa channelkayga waa kala aqaanaa iyo dadka cusub عبد المي dadka hore waaye عبد المي yes magaca taa kaa khaldan sorry wuxuu leeyahay 92 kiilo ayaa ahay hadeertaan markii hore waxa ahaa 108 kiilo wow markuu wuxuu iska riisa arkaysan kiilooyin badan 108 kiilo 92 kiilo farq badan oo dhaxeeyo hadafkiisuna waxa waaye 75 laakiin 92 yaa dhaafi lahayn maxay khaldan maxaa meesha u dhaafi lahayn wuxuu raa markii inuu ogaado 92 dhaafi lahayn Abdul horta brother waxa la dhahaa plateau Allah waxaas markuu qofka hal meel ku dhago plateau waxa waaye inuu kiiladii joogtay dhaafi laadahay ama kiilo isku darisa wada tusaale ahaan marka kiilada isku darayo kale maalin ayaa 80 kiilo dhaafi waayo sababtan waxay ahayd wixii jirkaaga ay sameeynayay hore aw sameyn jirtay jirkaaga wuu la qabsanayaa tusaale ahaan waa iscaateynaysaa nari diet ay sameyn jirtay diet ka sameeynayay ay yaqaanay diet ka sameyn jirtay waqti dheer waday jirkaaga wuu la qabsaday already jirku wuxuu ku leeyahay waxaan waa qaananiyo wax kala keenaya waxa mar hore la qabsanay wax kala keen jirka markuu waa machine waxa la rabaa jirka waxa la rabaa inaa ku sameeyso confusion marba u bedeshid bedeltaan marka ku dhahay ma ka wadina maanta diet ka sameeyso bari ma ka wadi hada like labo bilo kala diet sameeyso isku nooca waxa dareentay inuu si wanaagsan kugu socdo kiilooyinka ka dhacayaan laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxa dareentay inuu diet-ki uu macnaheedu istaagay hilibka sidii hore kaaga dhacinin isla markaas waxa la rabaa intoosan istaagin waxa la rabaa inaad diet-ki bedeshid aw wax ku soo kordhisid ama wax ka jartid ama wax un ku sameeysid ama asoo idil bedeshid diet cusub bilaadid macnaheedu haddii aad rabtid inaad mataqaanaa plateaugaas aad ka baxdid waxaa muhiim ah inaad bedeshid wixii hore aad sameyn jirtay haddii aan 92 kiilo dhaafi laadahay oo wixii horena aad weli sameynaysid waxa kugu horeeya kaa khaldan waxaa waaye in waxna aadan ka bedelin saa diet ku bilaaday ama waxna aadan ku kordhin haddii aad sii gudbo midaas waxaa ka wadaa macnaheedu waxaa cuni jirtay 2000 calorie hada cunada calories ka xisaabis ama qiyaasta aad cunada cuni jirtay aad taqaanay weli intii aad cunaysaa marka waxaa la rabaa inaad jirkiisa sii kordhisid maxaa la calorie sii yareysid 2000 aan ka yareysid 1800 1900 marka dareentay inuu hilibka istaagayo 1500 hoos sii socotid waa sida aa u dhaho dadka marka diet ka bilaabayaan inay cunto badan ay ku bilaabaan marka saacadaas ka bilaabayaan markuu hilibka uu ka dhici waayo wax ka dhin markuu hilibka dhici waayo wax ka dhin midda labaad ku kordhin kartaa waxay tahay jimicsi inaad jimicsiga aad kordhiso hadaa 30 daqiiqo sameyn jirta 40 daqiiqo aad ka dhigtid 40 daqiiqo aad sameyn jirta 50 daqiiqo aad ka dhigtid 60 daqiiqo aroortii subaxina jimicsi sameysid biraqaaysta inaad bilaadid sababtoo ah biraqaaysta calories ay gubaysaa naftiga hilib ay gubaysaa habeenkii intaan seexan oo kale inaad la wareeg soo gashid 20 daqiiqo 10 daqiiqo calorie gubeysaa marka wax inaad sameysid jirkii wixii uu sameyn jiray wax ka bedel inaad sameysid waa sida naqaan hadda dadka kubad dheelo kale hadda kubad 45 daqiiqo inaad dheesh u baratay 45 daqiiqo wax ma kula noqonayso normal markuu jirkaaga la qabso normal ay noqonay laakiin carab ku day 60 daqiiqo maalinta ku xigto ma sameyn kartid sababtoo jirkaaga weli ma la qabsan laakiin 60 daqiiqo marka sameysid maalmo jirkaaga wuu la qabsanaya 60 normal ay noqonay 70 daqiiqo marka jirka bilaadanku waxa wuxuu la qabsado caadi u noqotaa waxa marka muhiimsan ina waqtigaas diet koodid waxyaalo isbedel badan aad ku sameysid haddii kale oo mataqaan aad leedahay maxaa la dhahaa diet-kaygu wanaagsan waxaas ku soo kordhin kartaa programka azaid oo xiiseeyo intermittent fasting soonka waqtiga la soomo ilaa hadda wax ma cunin waxaa la marayaa deertan 8 saac labada qof bas u yaqaano koob waxa cabaya maxaa la kafee qaraara ilaa waqtiga cunada cunaya la gaaray asna waa sameyn kartaa diet-kii iyo waxa isku dhaxwadeen intermittent fasting ama IF ama soon qof walba sidoo u yaqaano waqtigaas waxa ku soo kordhinay soonka asna hilib kale ayaa gooysa
so waxyaalo badanaa jiro laakiin haddaa meesha la afarisid weligaa meeshaad ma dhaafaysid waxaa waaye 92 ma dhaafaysid waxaa laga yaabaa inay kiilooyinka ugu sii kordhaan waxaa ku leeyahay dietka ama cunada marba wax ku sameey bedel wax ku kordhi jimicsiga kordhi habeenka xataa mataqaanaa markaad soo socotid intaadan seexan 2 push up 10 push up 15 push up marba wax ku dar asigu calorie gubeysaa marka waxaa la rabaa inaad maskax isticmaasho markay saacateynaysid haddii kale waxaa waaye oo ama sidaa daraadeed waxaa waaye waxa programka coachinga u bilaaba waxay ahayd inaad dadka caawiyo macalinimada coaching waxa u bilaabay inaad dadka coach u noqdo waxa u bilaabay sidaas daraadeed ayay ahayd dad badan ay ila soo xiriiray oo meel wax ka bilaaba ma aqaan wax iga khaldan ma aqaan cunadeeda wax khaldan ma aqaan marka sidaas daraadeed ayay coaching u bilaabay haddii aad xiiseynaysid marka ila soo xiriir Facebook Snapchat Instagram kulli waa taqaanaan meel uu igala soo xiriir kasoo qayb gal waa baran doontaa Cabdul waxaa filaya su-aashaada inaan ka jawaabay dadka kale channelka ku cusub videodeeda hore gadaal ugu laabo booqo like asxaabta gaarsi peace out